inta badan aad xog heshid waa inta badan aad xal helaysid arrimo kugu tagnaa aad xal u helaysid videogan waxaan tala ku sii doonaa laba qof wiil iyo gabar wiilka ayaan ka hormarayaa maadaama dhiig aynu wadaagno gabadha waan ku xiji doonaa maadaama aynu dhacaan wadaagno dhiigay dhacaan waa waxa aynu ka sameysanahay labaduba isku meel ay ii taagan yihiin maanta haddii aad mudana tahay mudana waa qof ay marwo u dhaxdo laakiin haddii aad mudana tahay videogan waxba kaama gelin noloshaadana ha ku dabaqin haddii aad doob tahay single videogan waxaan jeclaan lahaa inaad dhegta isiisid xoogaa maanta haddaad xiriir ku jirtid xiriirkaasina aad fahmi laadahay oo madax xanuun jiro waxaan ku xasuusinayaa haweenka laba ayaa loo qeybiyaa mid nafteeda ku mashquulsan iyo mid haween kale ku mashquulsan waxa ay sameynayaan sida ay u socdaan sida ay sameynayaan waxa ay ku dhaqmayaan videoga soo dhigayaan live-ka ay soo galiyaan waxa ay xiranayaan sida ay u xiranayaan sida ay u soconayaan sida wax u baranayaan markay arkaan haweenka kale waxa ay sameynayaan haddii ay makeup soo marsadaan iyo hadday soo labistaan iyo hadday live soo galaan iyo hadday YouTube wax soo dhigaan iyo hadday video meel wax soo dhigaan iyo hadday sawir meel soo dhigaanba isla markii moodkooda waa isbedelayaa waxay jeclaanayaan waxa ay sameynayaan inay ka daba sameeyaan qofka maanta na wada sheekaysanaysan isfahmaysan isku farxsanadeen moodkeeda isla markii waxa bedelaya maadaama qof kale ayay ku xiran tahay way ka daba socotaa oo ay ku mashquulsan tahay oo iska dhigaysaa taas ayaa sababaysa mararka qaar inay isfahmi weydaan haddii maanta marka qof isla markii moodkiisa isbedelaya aad la yaabaneed tan iyo degeli gabadha nafteeda ku mashquulsan is horumarinaysa ku fahmaysa danaheeda ku mashquulsan oo qofka dhabta ah noloshaada u qalma haddii maanta xiriirka uu xun yahay micnaheedu ma aha in isla markii aad xiriirkan kusoo gabagabaysay guur si noloshu ay u sii horumarto wixii xiriirka ku hagaagi waayo guurka kuma hagaagayaan haddii aan soo laabto talada gabdhaha wiilka haddii mar walba uu soo wacayo halkay joogta maxaa qabanaysaa marka aad tiraahdo waa kugu soo celinayaa uusan aaminaynin daqiiqado kadib ku soo wacayo ku dhibaya ciil ku badaya cajajuub iyo ciriiri iyo su'aalo badan iyo maxaa qabanaysa maxaa ku socotaa iyo waxyaabahaas uu nafta kaaga qaadayo qofkaasi waa qof aan niyadiisa fadhin maskaxdiisa fadhin noloshaadana oo qalmin waxaad ogaataa qofka dhabta ku jecel qofka nolosha kula raba horumar kula raba dulqaad ku muujinaya xitaa haddaa isguursataan dulqaad ku muujin doono laakiin markaad tiraahdo waa kugu soo celinayaa kugu ixtiraama haye ku yiraahda marka aad soo laabatina aan ku weydiinin waxa aad soo qabanaysay iyo meesha aad ku maqneed waayo qofkani ku weydiinaya meesha aad ku maqneed iyo waxa aad qabanaysay waa qof asiga wax uu sameeyo mooday qofka kale inuu sameeynaya muhiimadu maaha noloshaada inaad ku dabaqdid videogan laakiin waa inaad xog ogaataa si xalka aad u heshid haddii qofkani moodkiisa mar walba qaldamaya haweeneyda niyad waxaad gelisaa wax kale inay maskaxdeeda ku mashquulsan tahay haddii wiilkan uu kugu dhibaateynayo taleefanka maxaa qabanaysay iyo waxyaabo kale niyad waxaad gelisaa waxaani asiga inuu sameeyo mid xasuusnow halka aan ka shaqeyno waa maskaxduna haddii meel kale ku mashquulsan tahay way adkaanaysaa inay laba shaqo isku mar qabato haddii maanta haweeneyda xiriir la leedahay ee maskaxdeeduna meel kale ku mashquulsan tahay way adkaanaysaa xiriirkaaga si u fahanto aad keento mararka qaar in xiriirku uu xumaado dagaalkuna uu bato haddii wiilkani aad xiriirka la leedahay uu baqdin la nool yahay ama waxyaabaha uu sameynayo asiga uu moodayo inaad adiga sameynaysid waxay imaanaysaa marka in su-aalihiisu ay bataan maskaxdiisuna laba shaqo iskuma qabanayso baqdinta hayso iyo adiga xiriirkaaga iskuma keeni karo waataan keenaysaa mar walba inuu ku su-aalo inuu kugu dhibaateeyo xorriyadaada mar walba waxaad ogaataa marka xiriirka uu xumaado isjiijiid badan uu yimaado inaad dib isku dhigi kartid inta aad wax ka fahmaysid laakiin isla markii dagaal hadduu dhaco isla markii heshiisaan dagaal dhaco isla markii heshiisaan dagaalkaasi wuxuu noqonayaa mid joogto ah ilaa aad iska guursataan marka isguursataan waxay imaanaysaa isla markii in gurigaas aad isku fahmi weydaan marka hore dagaal hadduu bilowdo isqaqabad uu dhaco labada maalin ee aad farxaysaan adana xanaaq ka dambeynaya waxaa ka qurux badan xanaaq aan dhammaanin inaad ku kala tagtaan ama waxaa ka qurux badan go-aan cad inaad wada qorataan go-aankaasina aad wada haysaan adduunka dadku waxay ku wada nool yihiin shuruuc iyo qaynuun iyo isfahan hadduusan meesha jirin way adkaanaysaa qofba qofka kale dareenkiisa inuu dhooro waxaana hagayaa waa dareenkeenana haddii aynun fahmin sida aan wax u rabno meesha aan rabno iyo meesha aan tegayno iyo sida aan u noolaanayno way adkaynaysaa dadka markaasi xiriirka aan la wadaagayna ama nolosha aan isfahmayno sida aan isku fahmi lahayn mar walbana waxaynu noqonaynaa dad isjiijiita halka inaa la fahantaa u malaynaya waa saxibka shaahid bizani muddo weynu kala maqneen meel walba adduunyada ka joogto waxaan ku dhihi lahaa allah ku xifdiyo mar walbana tan isticmaal السلام عليكم.